Asalaamu calaykum asxaabi dib isku soo noqosho wanaagsan muddadan muuqaal ma aan soo dhigin taasna waa idinka raali gelinaya sababo jira awgeeda balse maanta mawduuceena waxa uu ku saabsan yahay taxanaha Colours Orhan kuwa kale way jiraan laakiin asaga ku hor bilaabeena taxanaha Colours Orhan waxaa ka bixi doona in aad u weyn taxanahana muddo dheer ku dhex jiray doorkiisa wuxuu soo bilowday 2019 ilaa ay haatan muddo 8 sano ayuu wuxuu ku jiray taxanaha waxa uu najilayay geesi dagaalyahan dulqaad badan waxa uu inta badan ka garab dagaalamay Cusmaan waxa uu ahay saaxiibkiisa ugu dhow ee sirhayihiisa meel kasta oo tagayna Cusmaan la taga waxa filay hadaba inay fahanteen oo Boran Alb kaas oo taxanaha isaga bixi doona xalqada 22 ee taxanaha Colours Orhan markaan kaga soo tagna meeshaasi ka hadalka inuu ka baxay nin aad u weyn taxanaha muddo badan ku soo jiray dartiisana daawadayaal cusub inuu u yeeshtay laga yaabo kuwa hadda muuqaalkayga fiirsanayna qaarkood inay jiraan dad taageero asxaabeed in yaraan isdul taagno horta uu yahay ninkan jilay doorka Boran Alb ninka doorka Boran Alb jilay waxa lagu magacaabaa Yegid Ojan waa jira dhanka Turkiga caanka ah wuxuu dhashay 11 bishii December 1987 waxaana ku dhashay magaalada Istanbul doorka oo jilay waa taqaanaan nigalama sheekeenay waa Boran Alb kaas oo ku jilay saaxiibka u dhow Cusmaan Bey dhibi dheefna markasta garab taagnay Yegid Ojan waa nin familkiisa ay yihiin bareero fan oo waxa kale jira walaalkiisa oo ku jira taxanaha Dries Artugrol kaas oo ku jilay Aliyar Bey Boran Alb doorka oo ku jilay wax mar walba garab taagnaa Cusmaan dhowr mar waxa uu ka sigtay inuu dhinto waa uuna ka badbaaday balse markaani si toos ayuu uga bixi doonaa taxanaha waliba asigoo ku jilay in uu shahiiday yani uu matalay in uu shahiiday taxanaha sida ayuu uga bixi doonaa sidoo kale waxa jira in taxanaha reerkiisa uu aad uga sii darooyo marmarka si dambeeso oo sii hoobanayo dhanka Turkidana caadada ayaaba ah marba hadii uu taxanaha reerkiisa hooseeyo waxay u badan tahay in la jooji doono marka taxanaha Colours Orhan waxay ka doontaa in halkaan si soon lagu dhaafi doono hadii uusan reerkiisa ku sii socdana kulli sheekada Maxamed Boosda guji malahan uu soo gabagabeyn doonaa maxay la taxanooyin badanba sida oo kale uu gabagabay waxaana kamid ah deestaan xalqadaha soo socda hadii reerkiisa uu sar u kici waayo taxanaha Colours Orhan taariikhdii soo bilowday 2014 wuxuu ku gabagaboobi doontaa 2026 ayadoo aan la gaarin balad 27 taas laakiin mid dhici karto ma ka maxay la taxanaan waa mid joodi badan la galiyay welina rajo laga leeyahay daawasho badan leh yani inkastoo hadda daawado fiican lahayn muddo badan daawadayaal fiican soo lahay waliba taageero Turkiga inta ka tagay caalamka oo dhan ku fiday si fudud in lagu joojinayo uma eka doonto laakiin haddii sidan ku sii socdo kulli in la joojinayo la u badi insha Allah waxa rajaynaynaa in reerkiisa kor u kaco dhibkan dhanna waxa keenaysta filay hogaamiyaha cusub loo dhiibay oo qanfuruuriga ama macna marka waxa idin la sidaas nabadgelyo inta ka kulmeen muuqaalkiisa xiga muuqaalkan laag inoo saar goodbye